الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، نبي الرحمة ورسول الهداية، سيد ولد آدم، صاحب مقام المحمود، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحابته الكرام البررة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيين برينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه وافتشيه سيدا صحة صوابك. إلهي وحين كبرينا إنه قولك إريقة كلمة aynu caawa insha Allah is oran doono ka oranaya iyo ka lagu oranayaba ilaahay inuu ku anfaco fi alxayaati wa ba'da almamaat. wa ilaahay ka bariyaya subhanahu wa ta'ala. ilaahay waxaan ka bariyaa an yaj'ala aqwalana wa af'alana khalisatan liwajhihi alkarim innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. amalka kiisa naafi'a wa kan niyo wanaagsan ka soo fulaan haddii niyo wacan aanu ka soo fulin naafic ma aha. kelmaddan maxaynu u dooranay? waa su'aal furan. maxaynu u dooranay inaynu mowduucan ka hadallo dadka inay ku baraarugaan xirse xidhkii iyo xisnigii iyo dhufayskii nebigu inoo sameeyey sala allahu calayh waalihi wasalam, shayaadiinta inaynu kaga gabanno oo ka galno oo isaga celinno cadowgaas aynan arkaynin ee isagu ina arkaya. waxa mawduuca ina ku bixiyay arrimo dhowra. kow, kathratu lmushacwadiin, saxaaradii iyo faaliyaashii iyo kuwii kitaabada furayey. kitaab furku ma aha qur'aan, deyrabigee barzanji baa lagu furayaa. kitaab furadii kuwii kitaabka furayey, kuwii faalka dhigayey, kuwii saaxiriinta ahaa, kuwii maxaan ku idhaahdaa waxaa ku shaqaysan jiray baa batay. markay dacwaddu xoogga lahayd dadka si fiican tawxiidka looga saxayey, waxaasi daadkaa qaaday, ciidday hoos mareen. markii dacwaddii laga gaabiyo adduun loo dareeray, khuraafiiste oo dhan baa soo kacay. dadkii marka bulshada dhexdeedii shaqo xoog lah ka socota oo mushacwadiintii iyo khuraafiistayaashii iyo shayaadiintii ayaa dadka wax u wadwada. waaqica bulshada qofka ku dhex noole wax badan buu kala socdaa. taasi waa qodobka koowaad oo mowduucan sababtay inaynu wax ka nidhaahno. qodobka labaad, dacfu liimaan, dadkiiyo iimaankoodii daciifay oo wax moodaya faaliye iyo fooxiye iyo kitaab fure iyo saaxir inuu waxaysto. miskiinkaa liita ee iimaanka la ee adduuniya aakhiraba ilaahay ka fogaaday, dad baa u qaba inuu anfac hayo. markaasaa kii siyaasiga ahaa kursi u ordayey uu leeyay bal ii fiiri sheekhow, loobinka aan ku jiro aan guulaysanaya in kale. kii guur raba wuxuu leeyay bal ii fiiri ta igu fiicane ii wanaagsan. ka ganacsi raba wuxuu leeyay bal ii rogrog inaan ganacsigan caynkan wax ka helayo. kii maxaan ku idhaahdaa haluma jara. ma ujeedaa? qodobka saddexaad inaynu ka hadalno waxaa kalifay mowduuca kan dacfu liimaan, dadka iimaankiisii oo daciifay. dadka iimaankiisii baa daciifay. markuu iimaanku daciifana wixii daciifiyey baa meesha jira. waxaasaa jira. dacfuliimaankii wuxuu keenay in la sahashado ama laga tago ama la ilaawo adkaartii qofka muslimka ah noloshiisa oo dhan ku dhisnayd. tallaabada kasto aad qaaddo adkaar baa ku dhisan. haddaad biyo soo qaaddo waa bismillaah. haddaad liqdo biyihii oo aad cabtid waa alxamdu lilah. haddaad masaajidka soo gelaysay waa adkaar. haddaad ka baxayso waa adkaar. haddaad aqalkaaga gelayso adkaartii noloshoo dhan ku baysgaraysnayd ayaa markuu iimaankii daciifay meeshii buu ka tegey. dabeetana shayaadiintii inala socotay baa inagu naxnaxday
nin waliba shaydaan isaga ka feedho weyn baa la socda nin kaa xoog weyn oo adigu aad naaxisay hadduu kula socdo soo ku dilaamin maayo dee cuntadii bisinkii u qaban maysid islaantii bisinka u qaban maysid kulli shay bisinkii loo qaban maayo washaarikum fi lamwaali waalawlaadi baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ma u jeedaa inahaasoo dhan baa meeshii jira waa xoogaysta qofka markuu qofka kale isa salaamaan qariin baa qof kasta la socda waqayadnaa lahum quranaa rakcaddii dambe waa la socoteen qur'aanka imaamkuuna tujinayay bani aadamkan waxaa ku lamaan shaydaan qof kasta shaydaan baa ku lamaan qof kasta shaydaan baa ku lamaan iyo malag maa minkum min axadin ilaa wa macahu malakun malaa'igta ka mid ah iyo jinni baa la socda nebigu yiri sal alla alay slam xadiidka muslim fi saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra markaasaa saxaabadu waxayna adiga rasuulka ilaahay ma kula jiraa haa aniga waa ila jiraa laakiin kaygii ilaahay baa iiga hiiliyey wuu muslimay walaa ya'murunii ilaa bikhayrin khayr waxaan ahayn aniga ima amra buu nebigu yiri sal alla alay slam innaga ka inala socda muxuu yahay markaa ajiibu ya jamaaca muxuu yahay waa gaal de soo maa markaa iswaraysataan qofka oo isa salaantaan salaamu calaykum war iska warran sidee tahay labadiinna markaa iswaraysanaysaan labadii idinla kala socdana waa iswaraysanayaan war bal ka warran ninka maxaad ku haysaa war waa ku baktiyey ninkan adkaar buu igu dilay bisinkii buu igu dilay waxba lama nooli gaajada iyo haddaad i aragto saan u qalalay waad yaabaysaa war aniga waa barwaaqaysnah ninkan bisin iyo adkaar goorma ugu dambaysay wax kasta waa la wadaagaa aniga aqalka adduunka arrimaha axwaasha kulli waa la wadaagaa war waa dhaantaa buu leeyahy adiga labadiinna iswaraysanaya labadan kalena waa isku maqan yihiin waa iswaraysanayaan ma u jeedaa sidaa awgeed dacful iimaankii adkaartii baa laga tegay mawduuca saas ayna ku bixisay waxaa mawduuca ina ku bixiyey inaynu ka hadalno waxaa arrintaa ka dhashay oo natiijo ah dadka qaarkii inay ka cabsanayaan saaxiroolihii iyo jinkii kaas waa saaxiroole marka naga daabay ku leeyahay acuudu billahi min ashaytaan rajiim war naga daa una maqlayahay saaxir muxuu la fadhiyaa saxaradiisu ku fadhiyaa muxuu hayaa iimaanna ma hayo ilaahayna ma yaqaan nin alle ku xidhan cid ka adag ma jirto ka itaal roon dacfi baa ku dhacay in laga cabsado shayaadiintii iyo wixii shayaadiinta ku shaqaysta maadaama adkaartii qawiga qofka ka dhigaysay ay meeshii ka baxday isagoo haddana maca dacfi kaydihi ninkaasaa looga baqayo waxba lama joogo haddana inna kayda ashayطaani kaana daciifa dhagartiisa ile waa cadowgaagii waxba haddana lama joogaa ilahay ku yidhi subxaana wa tacaala waxba lama joogaa lagu yidhi mawduuca inaynu ka hadalna waxaa kalifi dadkiioo adduunyo lagu dareeriyey adduun baa la caydhinayaa waagii hore qofka kitaabkii markuu tukado salaada jeebkiisii waxaa ka soo dhici jiray kitaab adkaara iyo kalkuleetar iyo mobilaa soo daadanaya hadda adkaartii waa horaa laga tegey ma u jeedaa marka dadkiioo adduunyo un eryaya oo u qaatay diintii iyo tadayunkii iyo cibaadadii qur'aan akhriskii wardigii tasbiixdii qiyaamuleylkii khayraadkii dib u dhac baa loo qaatay nin waliba waa ordaya ma u jeedaa taasi waxay keentay marka dee in cadowgii shayطaan ahaa saaxo weyn loo fiiriyey arrintaasi marka waxay keenaysaa in dadka la baraarujiyo qofka mu'minkaay marna wuu habacsan yahay oo xoogaa nashaad ma leh marna waa dardar fiican buu ku jiraa waa dacfiga insaaniga bini aadamka ku jira inaynu baraarujinno saasaa keentay muhiimaddu waxa weeye wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin waanadu waxay wax taraysaa qofka mu'minka ah mu'minka miyirka qaba bay waanadu wax taraysaa oo iimaankiisa kobcinaysaa saasaa horta mawduuca keentay inuu ka hadalno waxaa gundhig inoo ku ah mawduuceenna aayad fii suurati faatir allah uu yidhi jalla wacalaa ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala xog rasmiya baa ilaahay ku siinaya xogta yaa ku siinaya kuturakuteen ma aha caalimu اlghaybi waالshahaada maaliku اlmulki du ljalaali wاlikraam rabu الsamaawaati wاlأrض
بحكتك السينية إلهي محوك لي سبحانه وقال صفات قالها إن الشيطان لكم عدو والشيطانك عدو بإذن يحددهم لبدين الله إذن أبورتي هذا الله صعو شيطانك عدو بإذن أي عدو كدكتا وحو شيطانك ugu yeedhaya intii isaga raacda oo ciidankiisa ah oo uu doonayo berrito inuu naarta la galo keligii inuu galo dee dooni maayo kuwa uu doonayo berri naarta inuu la galo wuxuu ugu yeedhayaa naarta saciira baa rabbiga yidhi subxaanahu wa tacaala ibnu kathiir tafsiirkiisa dalabada waxaan ku boorin lahaa dib ugu noqda aayadda markuu fasirayo ibnu kathiir tafsiirkiisa cadiimka tafsiir qur'aan alkariim cadiim وحلي ابن كثير عليه رحمة الله يسوى آيات كورمية مركئوا آيات كياني وحيري نسأل الله العظيم القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتابه والاقتفاء بطريق رسوله إنه على ما يشاء قدير وفي الإجابة جدير أنك نوحي لنا اللهم آمين ابن كثير ودعينيا وكو آيات تفسير كذا كان وحولي ابن كثير عليه رحمة الله وحان ويديسنا يا الله عظيمك إي أود وين له إي عدو البكاذك إنو إلهي عدو جينا نتصو شيطانك ما أرق إنو عدو إنو عدو إنويه يعني أما قبنه إنو عدو إنويه إنو أرهنتا فاهنو قاضنو وعدو جينا إلديراض أويرنو إنه إلهي إنه أرزاق بان ويدي سنيا كتاب كيسا إنان راعنه سانو عدو قوات كانه سنها رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم دريقدي سيان راعنه إنه على ما يشاء قدير إلهي وحاو دونه أحد أودوي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وفي الإجابة جدير إنه أدون كيسا أجيبنا والله مضن الله سبحانه وتعالى اللهم آمين بأولاد نسمعين كمان اللهم آمين أيام الله إنها دعاء شيخ وينودعه الله قرآنك وحكا قورمي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والشيطان يعرور تيسا ما واحد كدغان يسان كو إذن ماموله أو حكت إذن مياد كدغان يسان بإله إليه سبحانه وتعالى الإمام الشعبي من عالم وتابعيها بوحل السؤال لويدي إمام الشعبي يو هل للإبليس زوجة إبليسكو إسلام مليه وحاس مليه إمامك وحويري ذاك عرس لم أشهده أروس كان يقول ما تشوقين بير أروس كاس إبليس إسلامكو بورساني ما تشوقين لكن قرآنك وحوش هاقي إنه أولاد ليه مر هدي أولاد لا شيغانا إسلامنا ماشي واتشوك تهدي كتب التفاسير إسرائيليات باي شيغان قاركود شروحنا ما سو أرورينيان wax nas ku soo arooray ma jiro quraan iyo xadiis waxay sheegaan shaytaanku labadiisa bawdiyood ama labadiisa lugood ama labadiisa cajir Soomaaliya oo kala taqalluqadeeda midna dhakarkii baa ku yaalay dhahan midna farjigii baa ku yaal markasto uu saa isugu dhufto oo isgalaanba ukumaa ka daadanaya bay yiraahdeen markaas ukumahaasi dildilaacayaano awlaadi ka soo daadanaysa laakiin wax nasaho sariixo sheegay ama saxiix ah ما جروا وقصص إسرائيليات في بعض كتب التفاسير إن أكو أركتد وادعي كرتا إبليسكو يا شيطان كأنه كهد لينه ولي مقدمة دي ما كجرا ما ملائكة كمد معها لبس ربك كمد معها وسببت كواد أبور كود يسكمد معها خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار هذه صحيحة وين ملائكته وحا لغا أبور النور بإلهي رسولك صلوات الله وسلام عليه شن كان دبك أول الكيسا لغا أبور بإلهي سبحانه رسولك صلوات الله وسلام عليه أرنت اللباد وحويان إلهي ملائكته معاصصه لكن يسوي إلهي بعاسي الله قرآن كقورم سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أرنت حكتين التابانين وحوي محوية فرق ودحية جن إيو شيطان إيو إبليس من أبلساء بإريو كيم اللغة العربية أصل كده وحال لنا هذا قوص الشذا يأسي قال لي كلمة مقعيدة وكي إلهي نحريستك قوست
إبليس وأضيقي وحاني كسو فرعمين شياطين تنا إبليس جنكو كمديه وكان من الجن في سورة الكهف ففسق عن أمر ربه جنكو كمديه إبليس جنبو كسو تشيدا لكن وننبلو بلا قادتي شيطان كنا وكو عيال السوق مفسدين تا ظالمين تا oo jinka kamid ah inaga hadda bani aadam keenan ku ciyaala suuqa soo ciyaala suuqii mooriyaan lama dhaho ciyaala suuq weeye waa mooriyaan soo lama dhaho maxaa magacan gaarka asi dhaqankooda ay ku dhaqmeen qaab dhaqankooda sidaan u xun taasa marka la yiraahdaa quraanka ereygan jinni wuxuu ka soo jeedaa maadada luqada carabeed asalka laga dhalaaliyay ereyga kan waxaa la yiraahdaa ma khafiya wastatara wixii qarsoon ee aan muuqanayn la arkin baa la yiraahdaa qofka waalan majnuun baa la yiraahdaa majnuun maxaa majnuun loogu bixiyay laakiin aqligii baa de qarsoon aqli ma jiro ilmaha yar ee caloosha ku jira maxaa la yiraahdaa jiniin urjiifka ah ee caloosha ku jira wa ta'ala ka waramay subhanahu wa ta'ala wa id antum ajinnatun fi butun ummahatikum marad ahaydeen urjiif uurka hooyadiin كجرا الله عليه سبحانه وتعالى جنكا ساسو كلا إسقنا وح قرصون أو إنه أركين سداس جني لويري الله وتولي سبحانه أفترى على الله كذبا أم به جنة والبا لوتش دا مرك قفك والا جنون مجنون وإنك نرحنا مركا وحال وضع معنى هذا وحوي اختفى واستتر با أصلك جنك واساس إنه ما أركنا جنك لكن يسوون أركا محاول دليله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إسقى يعول كيس يرير كيس يقبيل كيسو جنك ويدن أركا لكن إذنكم ما أركيسان هدنا عادوا بوحن كويه بلده وما أركتي كراد عيسانية وحي رادان سيدا أي شيغان علمادو siyaabaha jirta lagu arko siyaabahaas waxa kamida inuu tashakul sameeyo waxa ilaahay u sahlay inuu isbadbedeli karo mar dameer buu iska dhigi muuqaalkiisa mar wuxuu iska dhigi ay madow mar bisad madow mar ma sacagalay buu iska dhigi baashan Soomaalidu casha barida tiraado buu iska dhigi ma ogtahay marba si uu tashakulaya tashakulkaas uu sameyn karaa markuu istashakula waa la arki karaa waxa kale oo la arki karaa kuwa la shaqaysta caalamul jinni kuwa la shaqaysta ee shayaatiinta ah waxa farsamada yaqaana ee wax la qaybsada ee ku adeegta iyaguna waxa weeyaan waa dhici kartaa isagoo isqabqaabeeyay in arki karaan waxa jira kitaab man akhriyay oo la yiraahdo xiwaarun ma'a suxufiyin walba waxa jinniyin baa jiray risaalo kooban oo nin suxufi oo muslima ayaa qoray uu leeyahay marka uu ka sheekeynaya jinka iyo qaabku u abuuran yahay muuqaalkiisa oo qof aan darisnahayn baa xanuun qabtay dabeetana ana la igu yeeray anigu suxufi baan ahaa quraan baan ku akhriyay jin bay gala hadlay waa muslimay uu tagay uu soo noqday waa is waraysanay waxaan ka waraystay buu leeyahay jinku sidee u egyahay wallahu a'lam kitaabkaas marka akhriyo risaalo wal helaya xiwaar ma'a suxufi xiwaar suxufi iyo jinni dhexmaray waa magaciisa la yiraahdo حلية جنكو إنديسو إنه ساسي وجهين سوما ساسي وجهين سجى بوليه والله علم عند الله لفتا سحل كويدير تايو لف دير بالك أوتاجن حياة الماما عين كاس غريب وشيء يا لكن إنك هذا واحد بدن با شين سلو إيه واحد بدن إنك ما خصيان با الشغل يسكمل هنا سكوباب منهين بني آدم جا كرامة لا بيننا هاي سيدا أوجد وحأوبها هاي مركا قاركود قرآن كريم كأ وحوت الماما يدو الشيطان العابر أيوه بإلهي تلمامي إبليس والشيطان لقى عدريه بقرآن إلهي كجورمي فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه شيطان ماشي أرجاس إبليس بلوتشي ده وأبهن يهويدن حواي آدم وكويداريي جندين كصبحان وحقرآن كشيء بني آدم كي يتشنكوا لبضوا بين إليه شياطين بقرآن كشيء إلهي كورمي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
alla wuxuu sheegayaa insaankuna shayaatiin buu leeyahay bani aadamkuna shaytaan buu leeyahay oo labada kee daran ka bani aadamkaa daran ka shaydaanka markaad tidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaan arajiim inaad dee weydaa dhici karta wuxuu kugu wadwaday laakiin bal kan inkaarta qabee kula taagan 10 jeer haddaad shaydaanka iska naartay dee waa isagii un biyo ismarin oo halkan taagan iska kaxayn kari maysid inaad sidaa awgeed ba qofku markuu macaasiya xumo ka soo baxo saaxiibadii hore ee shayaadiinta inuu ka baxaa fiican oo baabkoodii cilaaqadooda uu jaro nebigu sala allahu calayh waali wasalam aad iyo aad buu inuu ku dadaalay in shaydaanka cadowga aynu ka badbaadno ilaahayna si fiican u caabudno caqiidadu inoo toosto diintaynu fiicnaato adduunyadeennanu ay haynoo hagaagto nebigu aad buu ina kala dardaarmay nebigu wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ah fii musnad imaamu axmed asheekhu albani xasan ka dhigay ina ashayطaana qaala shayطaan wuxuu yidhi wacizataka yaa rabbi rabbiyow cizadaadaan ku dhaartay laa abraxu aqwi cibaadak ka zuuli maayo addoommahaaga inaan baadiyaynayo maa daamat arwaaxuhum fii ajsaadihim inta naftu ku jirto inta naftu jirkooda ku jirto ka zuuli maayo faqaala rabb alle wuxuu yidhi subxaanah isagoo u jawaabaya shayطaankii wacizatii wajalaalii cizadeed iyo weyninkaygaan ku dhaarte laa azaalu أغفر لهم ما استغفروني الله أكبر كزولي مايا أنيغنا إن سامحي أدن بدافيو إنت يدن بدافي ويدي سنيا مركزتو آد ويدارسو وددي وعنيد وحويان أنيغنا دن بيقودان دافيا مركي توبت كينان سيدا أوغيد طرق دا أولا أكسني شيطانك اللي سيقبت باديو أيا أي مكهل دي دونا قيب كميدة كوحا أصل qofku shaytaanka iyo jinka kaga badbaadi karaa xisnu tawxiid dhufayska tawxiidka inaad gashid qof caqiidadiisu saxan tahay inaad noqotid ma ogtahay laakiin haddaad noqoto qof caqiidadu ka xunta oo gebigaagaba riyo iyo sheeko lagu maamulo xalay waan riyooday waxaan kuugu riyooday kun yaasiin in lagugu akhriyo bal xaggee diinta kun yaasiin kaga qoranta kun yaasiin yaa akhrin kara kun yaasiin in lagugu akhriyo ku riyooday kursiga waa helaysaa maalin baa min dhowr jeer wuxuu igu yidhi warniyo waa ku doonayaa sheekh inaan wax ku weydiiyaan rabaa maantii dambaan ku yidhi wareedhe maalin walba waxaad tidhahdaa waa ku doonayaaye war bal kaale maanta ii sheeg waxaad doonayso suuqaan isku aragnayo dabeetana keriyoon buu ku shaqaystaayo meel baanu istaagnay wuxuu yidhi sheekhu waxaan rabaa soo nin wadaada ma tiid haye balwad baan ku yidhi islaan soo dohdaya baa igu taagane fariisin iiga akhri buu yidhi fariisin war anigu fariisintii kaakicinta ma aqaane waa maxay fadhiisintu sidee wadaad u tahay buu dad fadhiisinka ba aqoon islaanta way ugu kacsantay iga fadhiisi buu yiri wadaad oo dhan moogtay halka waa arinta igu kaliftay kalimaadkan inaan galo siiri meesha arintu marayso in adiga lagu wala soo doontay noqotay baashi muujeeda roy islaanta soo dohda falin baan ku yiri gabar bay ku siisteen kaar ba qabtaay saanta falin iska afgaro ama duunyay doonaysa ama xaajay doonaysa saanta la xaajayso iskana astur islaanta hadaad yururiso fadhiisiso sadohda ay yururto soo mushkilada adduunka ma aha marka waa mushkila cadiima sida awgeed ba qofku muslimka ahi xisnu tawxiidka waa inaad gashid markaas nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi al-yawm 100 marra kalmada qofka yiraahdo maalintii 100 jeer kanat lahu 10 adlu 10 riqab toban adoon isagoo xoreeyay buu la mid yahay wa kutibat lahu 100 hasanah بقول حسناتنا والوقرية ومحيت عنه 100 سيئة بقول ذنبنا ولا ترتريا وكانت له حرزا من الشيطان يومه مال كيساسنا شيطان كحجاب بوكاكتشراب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك قف كفل بدنا مكاتشر بدنا إيمان ما يقف ليمي وحي إسقو ليمي وح كبدن مويانه وأذكار أنت كبدن دي أذكار أنت كبدن وكلا قف كدري دي زيادة وتسمى ومركا بقول شر سبحان الله وبحمده بكدري بقول شر أستغفر الله وأتوب إليه بكدري سيدا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كما تجد شيرين سدح بقولات وأخريه بقول شر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول شر سبحان الله وبحمده بقول شير أستغفر الله وأتوب إليه سدح ذا النبي بقولات كما تيجي شرين عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم كهدي عقيدته كحمات سوء عياري يأتي الشيطان أحدكم
qofkiin shaydaanka wuu imanaya qalbigu kala hadlaya fayaqulu man khalaqa kada waxa yaa abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray buuraha yaa abuuray wadu adu ku soo warwareegaya soo soo socdo wuxuu ka oranayaa hatta yaqul man khalaqa rabbak horta rabbiga yaa abuuray rabbigan aad leedahay wax kasta isaga abuuray isaga laftiisa yaa abuuray fa idha balaghahu halka haduu shaydaanku gaaro warxuma tashiilkiisa uu kugu wado falyasta'id billahi walyantahi qofku ilaahay ha magan galo ha ka joogsado marka arinta ha ka joogsado arintaasi marka dhalinyarada hadda u badanta khaasatan daraasaadka dhigtamaadiga ah diintana aan waxba ka aqoonin qofka waxa la rabaa maadiga iyo diinta inuu isku wado haddii kale waa qalalaysaa diintaadii kama qatanaan kartid mawjeeda maadiga iyo diiniga isku wad maadigaagana baro diintana baro waxaad noqonaysaa marka qof isu dheelitiran oo balansigiisu fiican yahay baad noqonaysaa haddii kale dee xaalkaagu ma fiicnaanayo aqoon-yahan wacan ma noqonaysid waxaa labaad xisnu did alwaswasa xisniga waswaaska dhufays laga galaa jira dadka shaytaan waxaa jira nebigu magaciisa si gaara u sheegay shaydaanka magaciisa waxaa la yidhaahdaa khinzab khaada waa kordhigi karta xagga shaklinta khinzab khanzab khunzab inta waa ku bannaantay icraab ahaan shaydaankaasaa la yidhahdaa shaydaankaasi ibliiska wuxuu u qaabilsan yahay dadka inuu cibaadada ka waswaasiyo soo maydinaan arag tusaalaha wax lagu fahmaayey dad salaada intay xidhaan maantuna allah allahu akbar allahu akbartu u dhex fadhiyaa maantoo dhan kuma xirnuu leeyahy wuu ku celcelin markuu xidho bismi illah u dhex fadhiisanaya haddana bismi illah bes maantoo dhan ba'daasu u tumayo baa salaaddii ragcaddii koowaad tegaysaa hadduu ka gudbo ataxiyaadku u fadhiya atahiyaatu atadaasu u leeyahay salaaddii waa ka tegaysaa qaar wuxuu u fadhiyaa weysada buu u fadhiyaa maantoo dhan weysadu ku noqnoqonaya markuu dhameeyo kule gacantan ma dhaqin waa ku celinaya qaar wuxuu u dhex fadhiyaa istijada markuu suuliga galo istijado soo baxo buu wuxuu leeyahay qoqoyaanka inta kaaga yaal ma aragtaa kaadi baa kugu dulduusha wuu noqon maantoo dhan suuliga ka dhammaan maayo aakhirka qofkaas uu waalanaya si waswaaska looga baxo nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam qofkiin marka uu istinjoodo oo kaadiyo gacantiisa biyo ha ku shubo farjigiisii shab ha ku siiyo biyihii ha ka socdo micnaheedu waa maxay hadhow markaa soo baxday hadduu ku dhaho shaydaankii waxaan kaa qoqoyeen or waa beentaas anigii biyaha ku shubaad leedahay meesha waa beentaas anigii biyaha ku shubay meesha qofka waswaaska waa dawo nabiga inoo sheegay fiiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii waswaaskaasi jiro markaa istinjada dhammayso gacanta biyihii ku shub saa ku dheh hadhow hadduu soo baxo warwarkan wanaab isku shubay biyahe waa dhammaatay waxaas marka nebigu waa ka waran nin saxaabiya u yimid xadiidkan cuثmaan ibn abi alcaas fi saxiixi muslim yaa rasuula allahi ina shayطaana qad xaala baynii wa bayna salaatii ilahu ninkii rasuulka ilaahay ninkii shayطaan ahaa aniga iyo salaadaydiiba ku dhex jira naftii buu ii keenay waa dhibana wa qiraa'atii iyo waxaan akhrinayay yalbasuha calaya wa isaga kay dardaraya وسيك دردر يا رفاتنا رسولك الله يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب وشيطان خنزب ليلة ما قعد النبي يقول شيء كذا فير صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته حدا درينته فتعوذ بالله منه إلهي كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده واطفل عن يسارك بدحدادنا أطف ثلاثا صدح جر maxaa bidixda u tif loo yidhi oo midigta u tif loo oran waayo micnaha ku jira bidixda wadnaha ku jira wadnahuna waa aqalku shaydaanku ka soo galo qofka waswaaska ka soo geliya waa qalbigii halkuu ku jira shaaficiyadu waa kuwa yidhaahda salaada marka la xidho qofku labadiisa gacmood wadnaha ha saaro culayska miisaanka ah waswaaska ku ba'ay dhaha shaaficiyadu soomaadan garan marka halkan bidixda isagii baa kaa soo gelaya meeshuu kaa soo afuufayo weeye saddex jeer marka haddii aad dad la tukanaysid dee candhuufo weyn bash ha ku siinin dadka waa isdilaysaane si yaroo kooban uma sida markaa qof quraan lagu tufayo kale maarata haddee ninkii soo dhuundhuumanayay raba inuu ku qaso saddex jeer haddaa tuf indhaha kaga tufto dee nin indhaha lagaga tufay orod baa u yaal bay dhahan soomaalidu waad ordi un soo maaha war ma jiro marka taasina waa in lagu baraarugo oo laga diyaar garoobo ilaahay wuxuu yidhi waimaa yanzagannaka hadduu ku asiibo oo ku waswaasiyo من الشيطان نزغ شيطانك حقيسا نزغ أي نازغ
mid wax waswaasiya ereyga nasqiga aslu lugaha marka xagga bani aadamka la eego waxa la yiraahdaa adna xarakada ugu yar ee bani aadamku waswaasi kara la yiraahdaa xagga bani aadamka xagga shaydaanka marka la eegana adna waswasa baa la yiraahdaa waswaaska ta ugu yar haddii aad waswaasto fasta'id billah ilaahay magangal oo adkaarta akhriso innahu samiicun caliim alla waa ku maqlaya subxaanah waana ku ogi marka alla wuxuu leeyahay waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiin waxaad tidhaahdaa ilaahayow shayaadiinta waswaaskoodan kaa magan galay waacuudu bika rabbi an yaxduruun rabbiyow inay shayaadiin igu soo xaadirto ayaan kaa magan galay sidaa dhebu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam idaa shaka axadukum fii salaati qofkiin hadduu salaadiisa ka shakiyo falam yadri kam sallaa uu garan waayo intuu tukaday ثلاثا أم أربعا صدح أم سأفر فليطرح الشك شكك هيسكتورو وليبني على ما استيقن انت أوهبه وحكودسو ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي لبس سجودها سجوده انت أنو سلاما نقصا فإن كان صلى خمسا هدو شنت كذي شفعنا له صلاته صلاة دي سيبا يسود اللي تريسا شفعي كدقيسا وإن كان صلى إتماما لأربع هديئو تكد دميستر أفرنا كانتا ترغيما للشيطان وحين نقونيسا مركاسي شيطان بالله قسن دوليي بين نقونيسا حسنك صدحات حسن عند النوم مركاسي حانيسد حسن وضبها أنت أتقشيد وآية الكرسي ده آية الكرسي ده قفك أخرية وحنبي يقول من قرأها إذا أوى إلى فراشه قفك أخرية مركو ماشي وصيحا لها يماضو لم يزل عليه من الله حافظ إلهي حقيسا ولقى إلالنا ولا يقربه شيطان أسو دوان ما يبقى النبي يقول عليه الصلاة والسلام كحقوة عند الفزع وحسن عند الفزع قفكم مركو هردada كسل له oo qarwo oo hurdadiisa qarow iyo salal iyo waxay ku jiraan hadii xitaa caruurtu ay sasto xisni baa nabigu inoo sameeyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka bari jiray erayada a'uudu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun ducadaas ilmihi loo akhrinaya haday gabartay a'uuduki haduu wiil yahay a'uuduka aan akhrin karin haddii adiga aateen waad akhrisanaysaa ilaahay kalimaadkiisa taamkaan magan gelaya cadhadiisa ciqaabkiisa addoomihiisa sharkooda shaydaanka waswaaskiisa shayaadiina igu soo xaadirto buu nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi abu daawud baa soo saaray waa saxiix waxaa ka mid a xisnun cinda ru'ya almakruuha qofku marka uu riyo uu necab yahay uu arko marmar baa shaydaan kugu ciyaaraya riyadu waa mid run ah iyo mid maanta wixii aad ka shaqaynayso aad caawa ku riyootid yimid shaydaanku kugu ciyaaray isagoo lagu caydsanayo adigoo meel ka dhacaya adigoo bahal ku bacinayaan iyo wixii lamid ah ida raa ahadukum ar-ru'ya yakrahuha hadii qofkiin uu arko riyo uu dhibsado falyabsuq an yasari bidixdiisa candhuufaha isaga tufo waliyata'awwad billahi min ash-shaytani thalatha saddex jeer ilaahay shaydaanka ha ka magan galo ويتحول عن جنبه دنيعيسي هايسكا رغو الذي كان عليه ومارتي ان اهردي بو نبي صلى الله عليه وسلم رسولك مركا وحو ينو شيغ رياضي بو ينو فالينيا الرؤيا من الله رياضه وناكسن الله حقي بي كاهات والحلم من الشيطان قروغا يددبك يسللك شيطان حقي بو كاهات فاذا راى احدكم شيئا يكرهه قفكين هدو أركو وحو دبصدو فلينفث عن يساره 3 مرات صدح شير بدح لها أطف عنوف ثم ليتعوذ من شرها شر كذا إلهي كما قالوا فإنها لا تضره ما دي بيسب النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا صبيح مكان مقاحيد الله صوفر ديستو الشاه يو لحنا العبيات هذا ورحالي وحن كوريا أنا بابور تشيري حالي وحن كوريا أنا بحالي عاير سنة حالي وشي كين مالك شيطان وكو بقص ليا وانن انتو كدرباحي الله دور halkan mid baa dirbaxay hadda nimayo maxaan sameeyaa oo ku qosleeyaa Soomaahada xala dambu kugu ciyaarey marka dad ka sheekaysid wuu rabaa caawan uu ku kordhinaya saad bari sheekada u badiso habeen dambu uu ku kordhina habeenka dambe hurdada waad ka waalanba habeenka shanaadna waad waalanba caadi baad u waalan ilaa shan habeen saxan soo waalan maayde maqaaxibu ka furanaya lagu arkay meelad martay waa inaad marka ka magan gashaa ilaahay subhanahu wa ta'ala
وحكمده حرز عند الاستيقاظ قفكم مركو هردada ka tooso waxaad u baahantahay xirsi xir baad u baahantahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ida istayqadha ahadukum min manami wuxuu yiraahdo qofkiin hurdada ka tooso fatawaddaa u weysaysto falyastanthir thalatha saddex jeer sanka fiif ha iska yiraahdo biyaha markuu weysada raacinayo fa inna shaytaana yabitu ala khayashimi shaytaanku halkaasan qaroorka ah buu seexdaa waxay leeyihiin culimadu ibn qayyim oo kale tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay abu daawuudka wuxuu leeyahay ibn qayyim meeshan sanka ah sideedaba shayaatiintu waa khabiith wadad khabiith ah shaytaanku waa khabiith khabiithkuna meel khabiithana wuu degaa halkan marka duufka iyo qashinkii duufka soo raacay iyo maanta dhan boorka iyo sanka wixii gelayay halkan marka waa meesha ugu uskagsan jirka intiisa kale waa nadiif ma gelayo halkaas uu dhex jiifanaya marka duufka iyo qashinka iyo baladaas buu dhex joogaa marka weysaysato oo si fiican biyaha weysada inta u raaciso fiif dheh isagoo hurdo duudoon banaanka ku soo dhacay ma ogtahay adoo hadda hurdo biyo lagu shubay ka war soo boodi maysid hadaad carriba nasiib baad leedahay biyo ku saydhay buu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xisnun lixalli caqdi shaytaani cinda annawm shaytaanku qofku markuu seexanayo baabuurta in la warsheeleeyo maaragta marka la rarayo xarig baa lagu xidhaa mogta warsheelle iyo waxbaa la yidhahdaa habeenkii markaa seexanayso wuu ku warsheeleynayaa sariirtuu kugu xidhay ama firaashka adi ma dareemaysid laakiin hadhow kugu soo baxaysa arrinta nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam yacqidu shaytaanu calaa qaafiyati ra'si axadikum qofkiin marka uu jiifsado idaa huwa naam markuu seexdo shaydaanku halkaa jeegada ah hadda cilmi alxadiidka waxaa la ogaaday halkan shaydaanku wuu xidhaa marka la leeyahay halkan maskaxdii baa ku jirta meesha qofku ka toosayo kana seexanaya weeye bartii buu xidhayaa marka wuu xidhi shaydaanku saddex guntimood buu ku xidhi guntin walba korkeeda wuxuu ku akhrinayaa oo saarayaa habeen dheer baa kuu dhiman iska seexo salaad subax ma dhowa habeenkii haddaad tahajud u kici lahayd war ma dhowe iska seexo haddaadba seexatee saacadda inaad eegta xataa kuuma ogola wuu ku seexin فإذا استيقظ مركو قفكو توصو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهي حصه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ويراهض هل حرك با فرمي هدو ويستيستو حرك لا فرمي هدو صلاة ستاغو حرك لا فرمي فأصبح نشيطا طيب النفس صبحي سغوفر فرعون وناكسا أيو توسيا هديك له صبحي وحو توسيا يسوي ورنيه سركا مرغي قاليو بركنتان كدعان حال أمالانيا gacantaasan tabcaan xalaka miyaan barkaday meel bay ka dhacday waa nin xalay intuu shaydaan qaaday xarig ku kala gooyay gabigiisii ma noola markaasuu wuxuu leeyahay war xalay anoo caafimaad qabaan seexdayo dhabarkaasaa lii kala gooy lugtaasan tabcaanka surkaa xagga maba eegi karo muruq baa iiga jira nin baa baabkiisii gashay haddaa iska dhicin weyda uu kugu ciyaari soo maaha taasaa marka nebigu ka warramaya salawaatullahi wasalaamu calayhi adkaarta ha ka tegin habeenkii markaa seexanaysaan xisnun قرآنية من الشيطان قرآنك وحسن لقال الشيطانك النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة لبا يضو سورة البقرة كم إذا قفك آخرية في ليلة هبين كفتاه وكفليهن متفق عليه شراح الحديث وحيليهن كفتاه من قيام الليل قيام الليل وكقفليهن كفتاه من الشيطان شيطان وكقفليهن كفتاه من الآفات والسوء آفاتك إيه حمانته هبينك وكقفلين إلهي وكدوريا قرآنك أخرنتي سوى لمت رسولك أبي ذر حديثك صحيحة محوك يري إيدر دار المكوير أوصيك بتقوى الله إلهي عبسيسا كودر دار ميا سبحانه وتعالى قلت في الأمر كله قلت يا رسول الله مركزا وحان يريد رسولك إلهي أن إيزيادي عليك بتلاوة القرآن وذكر الله أغو أبو ذريو قرآنك أخرنتيس أغو قرآنك آدو أخري ذكرك يا أذكارتنا بتصؤ والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء الله أكبر نور بيكوته الدنيا إلهي كسارة يكسيني قلبك اللي قوق لنا مقالك يكركاك كم موقنية نور بكام موقنية آخرة إلهي أكتينه سبحانه وتعالى صمد وحكويا لكيد ونعكسن وأنت النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان الأخرياء الربا وقف القرآن كده دهله وما أنت جزء لا بواحد آخرين كرت
النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما شيء كستكرس بوليه وسنام القرآن سورة البقرة قرآن ككرس كيسي بارك أسرية وسورة البقرة وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة هدو الشيطانكم مغلو سورة البقرة تقرأ لآخرين خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة قرئ سورة البقرة لغو أخريه وكفي يا النبي صلى الله عليه وسلم بوير marka gurihiina ku akhriya hadaydiinan afka ka akhrinayna cajalada iska jiro mobilada ku jiro iska la heli kare hal daarto wa kana sallallahu alayhi wasallam yata'awwadu min 'ayn al-jan nabigu ilaahi buu ka migan gali jiray shaydaanka ishiisa thumma a'yun al-jin jinka ishiisna ilaahi buu ka migan gali jiray markii ay soo degtay qul a'udhu bi rabbil falaq iyo qul a'udhu bi rabbin nas iyo qul a'udhu aqul huwallahu ahad uu iska daayo saddexdaas uu nabigu akhrin jiray suuradood صدح قل والله صدح بر الفلق صدح بر بالناس صبيحي قلبتي من ابو اخرين جري ترمذي باصوصار ابن ماجه وحديث صحيح حسن في رقيه جبريل عليه السلام حسن في رقيه جبريل عليه السلام قفكم مركو حنون صدو رقيه جرته والنبي شيغ صلى الله عليه وسلم هدو قفكو حنون صدو ساحر با لوتي فاليا لوتي markaasuu dhahaya ceesaan cad hal gowraco wan hal qalo bariis cad hal kariyo waa kana dhiigiisa hal marmariyo inkaar iyo balaayo mid maskaxda laga jiro waalana waa hore waashay waxaan u sanayaa islaan hooyadii mooji waxay ahaydee baa waxay u keentay mid saaxir ah oo dadkan xoolaha qalqala ku dhax ninkan waa nin waalan marka laakiin fitradiisii baa saliim ahayd shaydaankii wankii buu yiri hal gowraco wankii dhiigii ayaa marka baaf baa loo dhigayaa markaas wuxuu yiri ka taltallaabso xagga u tallaabso lugta bidixda ku boodaysa markasta كي مركب محوليه معوسته كرقات وان والا لكن فترة سافينة أعوذ بالله من الشر وروح ميون فلا يا أبو لي مربط ضعف أبودا مركب ذا ورنين كان أفكي سأمسية ده ولا مرة تانية إلا شيطان بمشي نقديني ولا فرديه نين كان واني والا با مكاتب بافكي كد البودا وحول أعوذ بالله من الشر وروح ميون فلا يا ورمحوليه وحي ويسوق بن ويندي ويسوق بن ويدي إلا شيطان بمشي اللي يقولها لقلني موجودة ويسوق بن ويد مركب شياطين تو وحاسي كل شقيستان وقفك مسلم كأنه كتحدر أي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم محير أتاني جبريل بأيمي مركز يا محمد قل محمد أوله حديثك سبب لها عبد الله بن خنيس أيا وحى لقيري كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين رسولكم مركز منك الشياطين تاسقين سقوا الصعود النبي بي وضدي يبوره يميلي الشياطين كقصوداتين ورسولك صور صلوات الله والسلام عليه معلم المها كميدة مركز الصحابي قال سأل ويديو رسولك سدية لعبد الله بن خنيس مركز وحيري رسولك وحيري جبريل با إله الله وحيري قل له مركزان وحن يري وما أقول محان دها قال قل أعوذ بكلمات الله تامات إلهي كلمات كيسا دميس كترن بان مغنغل له التي لا يجاوزهن بر هو سؤال كتلابي كرين ودافي كرين بر أي تقي مدبارئة ولا فاجر مدنبيلأة من شر ما خلق وذرأ وبرأ وحي إلهي أبو الشرك سبحانه وتعالى ومن شر ما ينزل من السماء وحي شر السماء كسو دقي ومن شر ما يعرج فيها وحي شر السماء أبحية ومن شر ما ذرأ في الأرض وحي شر الأرض كوابور وبرأ ومن شر ما يخرج منها وحي كسو بحية شر أرلده ومن شر فتن الليل الشرك هبينك إي فتنتيس والنهار مالنته ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن متكستو حما الله قورينيا حماها الله قورينيا إله وذان كامل كنكره سيدا ده دعاء النبي آخر استي إمام أحمد باس صار حديث هو صحيح مركل النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بأيمي فقال يا محمد اشتكيت محمد ومياه حنون سطي قلت نعم ها وان حنون صنيا قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك وأذكار تصار ورتئه قفك بك الله وأخريه بسم الله أرقيك إلهي مقعي من كجود وينيا إلهي مقعي من كجود وينيا ساحرين يا شياطين إلهي مقعي وحما يقانا شيطانكم مرك الله تو ساحرك قفك إنه ساحري هاي صمد أتكو قرنيسان كل شيء جاي markaad u tagtido aad tiraahdo wadaad baan u tagay wuxuu ku dhahayaa kow magacaaga sheeg magaca hooyada sheeg buu ku leeyahay aabaha kuma weydiinayo sababtoo aan ma taqaana
لأن الشياطين يعتقدون جميع الناس أولاد الزنا ساحرين الشياطين توحي آمن سيهين dadka oo dhan inay garacyeeyeen bay aaminsan yihiin hooyadii un bay ku leeyeen baa og wuxuu yahay ninka kan odaygan wala isaga magacaabayaa hooyada og marka hooyada asal ku leeyay waligii aabaha ku weydiin maayo haddii aad aragtid nin wadaad inta lagugu sheegay lagu keenay ku yiraahdo hooyada magaceed war naga tagday afka alla ku gooy waad garanaysaa inuu yahay macaan ku yiraahdo marka saaxirin iyo waad garanaysaa markaas burji iyo balaayadan garanayn buu bilaabaya magacyadii magacaagi magaca hooyada xuruufteedii uu simiisaamaya halkan uu barsanjigi iyo deyrabigi furaya xisaabo isku dhufanaya waa kaas muxuu ka yahay maxaa u socotay gabadha inaan guursa isku burji ma tihiin labadiina mid baa dhimanayo kulay hadaa guursatid ama waa khasaaraysa ama ilmo idin noolaan maayo gabadhii dhamayd ee alla heshiisay aad guursan lahayd mid xuma inkaar qaba warkiisa kaga tagaysa walaalay anigu kuma guursan gaar alliga maxaa dhacay nin sheekha igu yiri isku burji ma tihiin wal burji oo maxaa tahay waa balaayaan la garanin dee oo shayaatiini waxa ku shaqaystaan من شر من كل شيء يؤذيك وحكستو كدبيا ايان الهي سبحانه وتعالى كاغد وين يا دينكيس من شر كل نفس وعين حاسد نفكست شركدي عين كستو حاسده شركنا الهي كان مغنجلنيا بسم الله ارقيك الهي مغعي بان كوغو تفيا كوغو دوينيا والله يشفيك الهي باكو عافينيا هذه هي عقيده المسلم عقيده مسلمك هدي عقيده حمائيه حنون سوك درسمو آياتين حموي مسلم باصوصة حسن من فجاءة البلاء في الصباح والمساء لفيس باكر لغا قالو إن صبحي واغو مركو بريود صوب حيسو يقالين كدن بابا بلايكو أصيبتو كدسة إن إلهي كاردورو النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم دعاء قفك آخرية 3 مرات صدح جير لم تصبه فجأة بلاء أو فجاءة بلاء بلايو كرسكم الدعضو حتى يصبح إلى أول بريست ومن قالها حين يصبح قفك يرى هذا مركأ قلب يستو صدح جير لم تصبه كما الدعضو بلايا داسي حتى يمسي إلى أول قلب يستو ودعاء كومن أو قفك آخر سنكر أبو داود باصوصاري ودرجة سوا صحيح حزن آخر في الصباح والمساء حرز آخر في الصباح والمساء حرزي كلا الله آخر الصبح يا قلبتي أبو بكر با نبي الله يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت إرسلك إله يو إبر مركا واقو بريا وحان له قلبتي وحان له إبر يا سؤال اسوي دينيا خير خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا سؤال ويدينيا أفضل البشر بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي محمد دبدي أدون كان يمكن خير بدنا أبو بكر بس سؤال ويديني لبدا سؤال يسويديين وحكى صدح بحي كور سو عجائب ما سؤال النبي جواب تفيري قال يا أبا بكر ورب بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أغترف على نفسي من سوء وأن أغترف أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أغترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم دعاء ذا آخري صحيح الترمذي ويه ودعاء دعوين كده بدل معنه هذا وقت يغير وندافدافي دونا وإشارة يا وحكم إذا حسن عند الطعام والشراب مركا عنتظر عنيس وحبيسو حسني لقى قلات الدفيس عدو كان الشيطان لا يرهدو سؤال اسوي الدين لبا مضن وامحي شيطان هدو عدوية دقالها حقوك هلا دقالها حقوك هلا دقالها تشيبك ابو كهليا وحال هيستو كل عنيا دي وحال هيستو كل عنيا اسلام تو ربا انو كل قبو اسلام انو دونين وقباتي كبخين وانو اروسين بو ربا انو علا كقاتو هذا ادا سيني اوغو كل ما سو غلين عقلك اسلام تو انو كل عنو دري أنا صوش قين وحي لو كريه وسود ديدين براينو عنه فراش عن إسلامتيس وجوجلين براينو قصة حدا يصير وحكست وشاركم في الأموال والأولاد ألا وتولي سبحانه وتعالى شايف كابو دقالك وحساب تم يا مرك والنبي يقول إذا دخل الرجل بيته قفكم مركو أقل كيس قاله فذكر الله تعالى عند دخوله إلهينا وحصه مركو أقل كيس قاله السلام عليكم ورحمة الله سومالي ده هذا البلغسو تاجي قولي مركو قاله كأقولهم بدأ هاي بل إسكوا رام حق مسود نبض قشين
أي مال في عيه ميتك كلو عبلاب يا بوق يا قيل هدو ريرمي هنا أريك واحد واع أنت متشرتا واحد دبوري جيلي متشرا وبلابيا وابسور نين كان صوع الرابي أو دبص على المال عاو كويدو ربا أقل كمركو صوق لو قفك إلهي حساه وعند طعامه مركو عناد عنينا إلهي حساه قال الشيطان كور بحنبو بحنيا إلا نول بنين له ينيه نول بقى من قاد وين ممكن عشاء تكنو وينو كلا دريري هذا هو نبى كله يندون إسكجر يعني أدونك كلا واملان مركز شيطان كمركو قفك أقل كسوق ولا السلام عليكم يراد هيك سلام شيطان وقرع لا مبيت لكم عاو ملا صحة مله دحنت إسكالعية يدربك ملا صحة مله عنتنا مركو عنيا بسم الله يرادنا ولا عشاء عشان ما تشرته دي بتشرني ما يقتو يعاو سوكا درسنتو وإذا دخل الرجل هدو قفك أقل كيس قاله فلم يذكر الله تعالى اللي آن حسن عند دخوله مركو أقل كقليه شكك لكم بلابه قال الشيطان كي يسقوا فرحسن أدركتم المبيت عوامل صحتين قري أنسان وقلن وهبيسن بعد ديار سوون لقوا ديار سريرتم بكله هردا بركنتنا وكلا بركن موجود إسلامتنا وكلا قاضي وإذا لم يذكر لله تعالى الله هداد حسي ويده هذا نقفك الله حسن عند طعامه عنتنا مركو عنيو قال أدركتم المبيت والعشاء وربحين بحين يا مكت ورعاو عشا واهي ستان هيات النواهي ستان وحي الله إذن كعل فضا بل وحي هرواتك أنا عاو ينك من له ينين هلا قد يعاو من له ينين دي الله يراه النبي صلى الله عليه وسلم وحي يريه إن الشيطان يستحل الطعام شيطانك وحو حلاشة أو بنا يستعنتذا لا يذكر اسم الله عليه إلهي مجلس أن لقوا حسن حديثك سبب لها سبب حديثك لها رسولك حير الله صادق أنت كتشرت صحابة لفندا قبر أرديسة وصاقش وحي است رسولك حير دي قعنت قلين رب قعنت وقبت ننكلو ربادية أبا صاق الإسلام مركيبة قعنت قلي بيصير قعنت النبي صلى الله عليه وسلم مركز روحي والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها إلهي بان كل دارتي شيطانك قعنتيسي oo gabadha gacanteedii la socotaan hayaabu nabiga sallallahu alayhi wasallam ma u jeeda saasaanu hayaabu nabiga sallallahu alayhi wasallam haduu gelin lahaa cuntadaasi de khalaas inuu wax ka faa'iido doonay cuntada marka la cunayo waana la isla cunaa bisinkana waa loo qabtaa ninkii saxaabiga rasuulka u yiri muxuu ya rasuulallah inna na'kulu wa la nashba rasuulka anagu waxbaan inta cunaa mana dhargeyno markaasuu la'allakum ta'kuluna mutafarriqin waxa laga yaabaa inaad gaar u cuntaan bal reer dhan oo dhari weyn inta la kariyo qof walba sixin loogu riday ma kula jaameesho bas waa xirami la tiri dadku waa in wax wada cunaa islaanti waa baaba isa mugti hadii laakiin wax yar inta la kariyo sixin lagu wada cuno dadku waa dhargaya nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam marka cuntada cunaysaan hal weel la ku wada cuna bisinkana u qabta maalinta dambe u yimi rasuulku ilaahay dharagna buu yiri maantii baa noogu dambeysay cunto naga goodo iyo wax kale marka cuntada caynkaas rasuulku u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam la yaakulu ahadukum bishimali qofkiin yaanu ku cunin gacanta bidix wala yashrabu bishimali bidix yaanu ku cabin ciladu waa maxay fa inna shaytaana yaakulu bishimali wa yashrabu bishimali shaytaanku bidixdu wax ku cunaa waxna ku cabaa dadka qaar kood diinta aan garanaynin wuxuu ku oranayaa isagoo xadiiskan la murmaya oo cid u jeeda aniga labada gacmood soo ilaahay ma siin bukulay labadeeda gacmood ilaahay baa isiiyay aniga waxa weeyaan maxaad marka midiga lagu cuno war sheekada hay la soo gelin waa waxa ka keenteen bukulay سؤال بقى ودينيسا كاسوكا دتك قار با نسك هدي لو اخري ان كا دغيسنين لكن سكر الله لها عقلي waxa la yiraahdaa hadda hadii aad qof ka hor timaado oo assalaamu alaykum marka tira bidixda u dhiibto war waa ku sidee buu kuleeyahay ma bidixda igu salaamayso ma isku mid way labada gacmood ka yeeli maaydo qof war isku mid ma adeero ama si fiican salaaniyo ma taxbaad u jeedaay ama deeska daabo ku oranaya marka suuliga gashid midigta ku istijoodde kaadida saxarada isaga maydh ma ogolaanayo isaga maydhade sida ogeed baa duufka iyo istinjada iyo waxaas bahashan ku qusaysa cuntada iyo salaanta iyo wax qabsiga iyo gacanta bidix ba ku fiicanta aabaha baa ka hor imaanayay bal bidixda ku salaan sadaqa ku salaan saydiga ku salaan islaamka sheekhi ku salaan balna ka socoto ma ka soconayso aqliyan aqliga ka shaqaysi sheeka dhowey moogta sheeka dhowey waxay raadin xukuumadii siyaad barre kuwa golaha dawladda isugu yimaadeen
markaasaa laba nin baa meeshii ku jira nin baa wadaada ku jira ha ku cunay gacanta midigta aad cuntada ku cunayso dadkan Soomaalida moota ilaa hadda way nagu dambeysay reer magaal iska dhiga ah gacantana aad ku cunayso koobka waa wasakheynaya reer baadiimaata bidixda ku qabso markaasuu wuxuu yiri intii sunnuhu wasakoobi lahaa koobkan ha wasakoobo koobka wala maydhiya Soomaa mid kale wuxuu yiri markaa hor adeer sunna lahayne maaragtay nidaamka ilaali nidaamka wax lagu cunay ilaali markaasuu koobkii ka bada uu dhigay xoon meel uu ka yimi aan la garanay baa dhag ku siiyay meeshii intaan laga kicin dibin weyn oo inta leeg baan ka soo dhacday in lagu barartay markiiba in la sunniyi waa aflagaadeynaya moogta sida awgeed reer magaalkeena maqaaxiyaha hadda fadhiistay Soomaaliya arkin midigta inuu koobkii wax ku cunay gacantiisa ku qabto ma ogola waa wasakoobiya abu kulay waxyaabo badan baa iska jira moogta marka sunnaha diinta in lagu dhaqmaa fiican waxa kamid ah xusnun lihifdhi albuyut guriyaha in la xifdiyo oo nabigu waa ka waramay la taj'alu buyutakum maqabira guriyihina qabriyo iyo xabaalaha ka dhigina laba macna ku jira gurigina qabriha ka dhigina macnaha koowaad qofka idin ka dhintay guriga ha ku aasina ee xabaashi geeya qodobka labaad guriga salaadaha sunnaha ku tukada quburaha miyaa lagu tukadaa laguma tukado qabriha ka dhigin guriga salaadaha sunnaha ku tuko inna shaytaana yanfuru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara guri shaydaanku waa ka carra guriga suratul baqara lagu akhriyo muslim baa soo saaray حديث كلا حاكم أحمد صحيحة إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض إلهي أنت آنو سماوات كأرلد أبورين أي كتاب قري ب1000 عام لبكنوا صندوت وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة وحو قال له سودة شيء لبايا سورة البقرة وكو ختمي ولا تقرأ في دار قري لقو ما أخريه فيقر بها شيطان 3 ليال شيطان مدعو انه كسغنادو 3 مالمود النبي صلى الله عليه وسلم سوره البقره غوريغا لغو اخريو 3 حبين iyo 3 maalmood waa 72 hours 7 saacadood ma soo galay shaydaan heerkaasi bal 3 bari ha laga nasto dhibtiis in ka qaba 3 bari ha laga nasto heerka bal ka maxaan ku iraada ka fiijiya حسن عند خروج من البيت غوريغا markaad ka soo baxayso caawad hoyatay subaxi ninkii xalay banaanka jiifay ee aan casho cunin ee aan seexan ee darbiga ahaa subaxi waa ku cadhaysan yahay aduu rabaa inuu kugu lug darsado saaka ciilkii iyo caradii xalay buu ka jaraya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam ida kharaja min bayti qofka yiraahdo markuu gurigiisa ka soo baxo bismillaahi tawakkaltu ala allah qofka sidaa yiraahdo la hawla wala quwwata illa billah يقال له وحال أورنا يا ملك مدكتي ستاغنا كفيت ووقيت وهديت شيطانك ولقى كافيي ولقى إلاليي ولا وهنونيي وتنحى عنه الشيطان شيطانك وقدر كيا فيقول لشيطان آخر شيطانك لو كأورنا يا كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي سيدي أقلي كريسانين محانك إلى الهنونيي ولا إلاليي oo macaanku laga kaafiyay say u gali kareysa tirmidii baa soo saaray Salama waxay leedahay kadinka markuu ka soo baxo albaabka wuxuu istaagi jiray kadinka nabiga albaabku istaagi jiray markaasuu cirka eegi jiray markaasuu ducada inta markuu akhriyo muxuu ku dari jiray Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw adlima aw adlama aw ajhala aw yujhala alayya buku dari jiray nabiga sallallahu wa salamuhu alayhi waqtiga waa dhamaaday كلمتنا ويبرنت كلا برنتهاي الكعاو إنه كدينه إن شاء الله تعالى نسأل الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه